Somali Disability Empowerment Network waxay had iyo goor taagan tahay habeenii maalina iyo waqti badan aan ugu soo sameynay inaan ururkan la sameeyo waxay tahay sidii loo heli lahaa dadka naafada wax u adeego maadaama ay aad u yar tahay horumarinta dadka naafada ah ee dalka Soomaaliya aysan jirin dad badan oo isku xilsaaran arrintaas inkastoo hadda waayay dambeeto ay soo baxayaan dad badan oo hal abuur wanaagsan leh oo kala duwan oo dibadda iyo gudahaba oo aan ka magacaabi karo ururka East Africa Disability Aid walaashii Xafsa Jeer la dhigi tahay iyo urur kale oo lamid ah kuwaasoo si volunteer ah ugu qabanaya dadka naafada ah ee Soomaaliyeed waxa ay rabaan sidaa daraadeed hay'adda Sodan mar waliba waxay xoog saaraysaa advocationka ama advocate-ka sida xuquuqda dadka naafada ah xuquuqda dadka kale maxaan ku yiraahdaa naafada ay guryaha ku xareysan ee aan soo bixi karin waxa kale oo xoog saaraynaa waxbarashadooda kaleeto caafimaadkooda waxaan ku yiraahdaa inay sports fiican helaan inay fikrado fiican oo kala duwan dadka la qaybsadaan ay bulshada ka mid noqdaan si dadka bulshada ka mid ka ah ay ayagana uga mid noqdaan sidaa daraadeed Sodan had iyo goor waxay garab taagan tahay ummadaas naafada ah Sodan naftirkeeda waa dad naafa ah boqolkiiba 80 waxaan leeyahay karaa dadka Sodan ka shaqeeya waa dad naafa ah dadkaas oo jecel horumarka dadka naafada ah ee Soomaaliyeed Sodan sida arkaysaanba waa boorkan dhabarkayga saaran hadda oo idin muuqanaya waa xafiiska Sodan ayaan ku dhex fadhiyaa ee idin cadeynaysa waxaana markaasayta aan rabaa inaan idin share gareeyo dhacdooyinka ugu dambeeyay ee markaasayta soo baxa annagoo dib markaas idin kugu soo sheegi doono wax qabadeen hadda si ay nooga tahay inaan idin sheego fikirka guud ee Sodan waa urur abareer soo jiray inkastoo horaan aan ururada naafada ka shaqeynay oo aan ahay qof activism disability activism ah oo arrimaha naafada inaan ololay aad iyo aad aan jecelahay haddana Sodan waxaa aasaasnay 2012 ilaa haatan waa jirtaa ka qaybgalka Sodan waagaas waxaa ka mid ahay dad badan oo madaxa oo maanta madaxda dalka oo ka mid yahay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiirkii hore arrimaha gudaha Cabdikariin iyo dad badan oo bulshada magac ku lahaa dartaan ayaa ka mid ahay dadkii maalintaas nala sameeyay waxa kale oo ka mid ahay xarunta CRD Jibriil sidaa daraadeed dadka aad daawanaya muuqaalkan waxaan rabaa inaan ugu hambaleeyo in shacabkooda Soomaaliyeed ee mar walba Sodan garab taagan tahay especially dadka naafada ah ee Soomaaliyeed adinkana intii karaankiina waxaan rajaynayaa inaad garab taagnaan doontaan bye bye